deeqbaadu heshay calanka darajee oy dushaada suro miskiisa haddeen waqtaada kadib dib loo dhisay adhamaan dunidii ku dayrantay iftiinka ka daaran ku doogsa Puntland alla iftiinka ka daaran ku doogsa Puntland waqtaada kadib dib loo dhisay odhamaan dunidii ku dayrantay iftiinka ka daaran ku doogsa Puntland oy iftiinka ka daaran ku doogsa Puntland إن شاء الله عبد المالك أبو إن شاء الله أفضل على القرآن إن شاء الله عبد المالك شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan مايك kale inuusan si fiican u shaqeynayn markana isticmaalayna insha Allah taala waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyada qurba joogta Seattle ee Puntland Abdulqaadir Diiri Cabdulle magaca leh Muune asna inuu matqana loo furo xaflad insha Allah welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وايد سلامي waxaa sharaf noo ah inaad ka soo qayb gashaan xafladan oo aan ugu talagalnay injineer Cali Nuur soo dhaweyntiisa iyo warbixin waxaa mikrafoon ku soo dhaweynaya Maxamed Ismaan oo xafladda noo daadiinay. Assalaamu calaykum.
mar labaad wax yar waxaan rabaa inaan ku daro housekeeping ah waxaan muddo waqtiga ugu talagalnay inaan bilownay inaan wax yar kadib dhacnay warbixintuna insha Allah inay qaadan doonto saacad ama saacadii baan rajaynaya insha Allah marka waxaan rabaa dadweynaha sharafta leh xafladda naga soo qayb galay oo aan ku casuumi doono insha Allah inay orahdooda ka jeedsadaan ama ay ka hadlaan meesha inay waqtiga noo gaagaabiyaan 3 daqiiqo wax badan baan ugu sheegi karaa marka insha Allah 3 to 4 minutes maximum insha Allah in la isticmaalo taa waa iska ogeysiis marka hadda waxaan rabaa inaan u dhiibo microphone-ka ku soo dhaweeyo Sheekh Cabdullaahi Xaashi Cigaal oo ah chairman-ka maamulaha iyo culimada Seattle dadka ugu waaweyn ahna meesha hadda shirka ku qabanayno madaxdeeda oo aad noogu soo dhaweeyo runtii marka Sheekh Cabdullaahi soo dhaweeyo insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنات بالردية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله إن شاء الله تعالى وسوكو بيا وحبذا مرة يهرت كل جين سود وهذا ميف مسلم أمريكان يوث فاونديشن كسود وهذا وماشى هذا مدرسة الوفدية إلهي سبحانه وتعالى وحي خير كجر هنوافجي في الدنيا وفي الآخرة وحان سود ويننا إنجنيركا رنهانتي ندخل الصومالي وأباهي نموذج كان دكدا قرعت ونموذج دد كانوا أباهيين ودن كان برواقدي سؤال بأفر بدنتهاي لكن لبعضنا هي ستوحيتها إلهي نما تسم iska dawareeg baan ku jirnaa saasaan isaga dawareegaynaa dadka faqri iyo dhibaato iyo gaajo iyo iska dawareeg iyo qabyaalad iyo waxaan loo taagnayn بينما dadka Soomaalida awood hadii ilaahay aqlina waa leenahay dad wax Soomaaliduna dad sideedaba active weeyaan marka hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maslaxadeena garansiin lahaa oo aan garan lahayn waxa maslaxadu noogu jirna waxaan ka hadlaynaa xataa aakhira xagga dhig maslaxatu dunya maslaxadeena adduunyada hadaan garan lahayn inaan noolaano oo mujtamacaadka aan ka mid noqono oo sida dadku u nool yahay aan u noolaano oo aan sidii ibn aadamka aan noqono iska dawareegan kuma aan jirin wadan barwaaqa oo ilaahay khayraad u dhigay baan joognaa meel walbana khayraadku waa yaala intaasoo xeebood iyo intaasoo kunoo dekadood baa wadankaas boqolaal dekadood baa laga sameyn karaa marka namuudajkan ama tusaalahan garacad waa tusaale aad qaali u ah ayna tahay dadka in la tuso dadku inay wax qabsan karaan inay hadda isku duumaan khilaafka la iska daayo qabyaalada iyo iska dawareega la iska daayo in wax la qabsan karo nabiguna kaleey salaatu wasalaam waxa uu sheegay xadiis fi sahih muslim wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam sheegay al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khayr mu'minka qawiga hadalka marka qawiga maxaa loo jeedaa culimadu waa isweydiiyeen quwadu maxaa waay مقوة الإيمان با مقوة البدن با مقوة المال إيو والث إيو حولا علماء وحا ركفر بدن وحديث كشرح سيد الإمام النووي في صحيح مسلم وحي دهن قوة الشيء يقفك مؤمن كه وقف واحترى هدي دين الله واحتر وإيمانك يسحق مرك الله كعو هدي ما دين الله قفك مسلم كه وقوي هدي بدنيا الله وقوي لأنه قف ضعيف وحمق بنكر قف أسوي يا بن ومحبها يسن فاقد الشيء لا يعطيه قف ومحبها يسن وحمد بحيه مركب قفك مؤمن كا أو جسميا ودسن موراليا ودسن مورال كيس ودسن يهاي جسمي كيس ودسن يهاي مال كيس أنا مالك خالد أنك فهم سنة قفك مؤمن كا إنه فقر نقضه لقى لما بالمين النبي عليه السلام حال لجوري صلى الله عليه وسلم مال ما كم إذا نين صحابي رضي الله تعالى عنه أو سو إسلامي با نبي عليه الصلاة والسلام waxa uu ku yiri waxaan rabaa inaad dagaalka gasho oo qaniimada hadaad soo hesho qaniimadaas aad qaadato wuxuu yiri nabiga ilaahay oo qaniimo u maanan islaamin waxaan u islaamay ila diinta ilaahay iimaan iyo islaamnimo aan u islaamay qaniimadan kamalihi xooladan kamalihi nabiga عليه السلام wuxuu ku yiri ninkaas waxa uu ku yiri ni'ma al-malu salihu li 'abdi salih maalka wanaagsan qof wanaagsan buu ku fiican yahay qofka muslimka inuu xoolo yeesho dhaqaale helo laana wuxuu garanayaa ilaahay xuquuqdiisii iyo xuquuqdii bini aadamku ku lahaa uu garanayaa ma nala kalama ballamin inaan faqri noqono inaan tuugsano inaan cayr qaadano inaan iska daba wareegno nala kalama ballamin waxa loo baahan yahay marka dadka muslimiinta ah
inay fahmaan maslaxadooda caamka ah waxaan ku soo khatimayaa warkayga oo aan rabaa in hadalka ku soo khatimo ilaahay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil markii uu ku xukumay in ay qaxaan sidaan u soo qaxnay way qaxeen fircoon iyo laga badbaadiyey kabacdi waa qaxeen ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad quraan uu sheegay qaxoodaas dhibaatada ka dhalatay quraankuna sidiisaba waa namuudaj waa tusaalooyin buu bixiyaa tusaalooyinkuu bixiyay in wax laga qaatay u baahan tahay ilaahay waxa uu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer bani israa'iil iyo nimanka yuhuudda la dhaho ayaga oo kooxa kooxaa baan dhulka ku firdhinnay waa firdhinnay kooxa kooxaan ka dhignay waqatacnaahum fi lardi umama minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa wanaagsan iyo kuwa ka sokeeyo aan wanaagsanaynba waa isugu jiraan ilaahay waxa uu leeyahay wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati waxaan ku imtixaanay dhibaatooyin iyo wanaag labadaba dhibaato iyo wanaag baa ku imtixaanay kuwa waa faqri kuwa waa xanuun baa lagu imtixaamay kuwa faqri baa lagu imtixaamay kuwa walfi iyo tukham baa lagu imtixaamay iyo dharag waa isku dhex jireen ilaahay muxuu gadaal ka dhigay lacallahum yarjicuun inay ilaahay u laabtaan subxaanahu wa tacaala marka aayaddaas rasman marka loo kaco annaga wayna haysataa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى نحن هذا وذي الله سبحانه الله سبحانه وتعالى الله أنه قال هذا يستين معونك فرح بدني كوي كرهينين كدب حرينا وما على جنر على نور وكم هالسنة هاي إنه نصاب وقضي مجال النوجي بعد وكجمع هدعلنا وصاب ونقضي أنت أنا وقفنا ماشي السوق ماذان كل ماذا إنه هو ركدون كل ما بدن أنت اللي سوقي مد وحي بدنايان أما ميلا بدن السوق نمد أما سياسة أما هالنقطة أما كل ما الدعوية هالنقطة لكن يعني it's unique ده كان وقف إذا أنت السوق ماذان إن ما أنت أرين صومالي وين كون نقطي أي السوق ماذان بركي أنت إن شاء الله كلمة دقيقة واحد جعلنا لها investor دات هاي قاعد دكتة قرعت قاعد تتاعي كانوا قاعد تتاعي if you are investor دكتة قرعت قاعد تتاعي okay رقبة الله قاعد موتاعي ما شاء الله تقعمها دجوا مع سنتين خير الله يسي قبلها قبل قاعمها متاجي ولا قبلها كم جرام يا قبلها رجوا يكلا عقبنا يعني إن أرتو حنا السجون مدو أركيسان ووحقبت رنتي ووحقبت ويا إن لبش شيء سومالي ذا حديقة بسن لهيت أي هير جاري لهيت وحكم ده قفك إن لقاه لكو كلا دمبين إلا كلا دمبين سومالي ذا ويكوهد ميسا هدي لهم كلا دمبين توحى قف هدو مسؤول كويه هاي ومدح كويه هاي إن رأيك هدي للديرو أكتيس كشغل وحبس أحسن هذا إن هذا سمعا وطاعة وأنا قبلي مركز سومالي ويحاول بهنا تاس إن لقوا ترين جريو ويأذكتها ملك ساجو توقفك الصومالي هذا بيزنس كتكتين واحد وتجي قفك الصومالي مر والبوحة بورسيس قاعد تقول جرتها حدا إسقاطان وسيجور ملك محب مساجدي بابا نقطة سيجور يسه إسكده بعكلا مرك هرتار إن صومالي له لو كلا دمبين واحد بدن بانه وقف صومالي قفك إنه مسؤول كنوع أما هالنقطة ما حصر هالنقطة أما هاكو ظلمية حتى واحد بكوين ذاتك إن السكوها يا كوين كلا دمبين تسوى أرين مهمة ويهدان هلنا وحنا نوقف صومان حتى كلا دمبين إنه وقف صومان وحنا كلا داتر كلا دمبين قف صومان لان إنه وقف صومان لا طلبات وحوي كلا دمبين تكسو هرئيس أو أيضا مهمة وضع شقين collaboration قال هذا واحد هذا ما تقال collaboration كو language واحد of civilization واي competition كان واحد language of jungle واي قال هذا هذا أنت إسلام كيف اللي جارون دينتي حياتك أنت وجود منبه وحي كل إلا وضع شقي واللغة دتك ضدك هرمري واي civilization وحنا نقول كان وحى واي إن أديك وضع معمول كرون تنفر لصديق الروح أنا نقدر حيان ها سين وضنا marka waxyaalaha runtii aadka hadda aan uga midaal qaadan labada midal oo soo sheegay waxay tahay dekedan hadda aan isugu nimid horta kale dadku ugu horeeyay wax ku darsanahay nikow taas aan idin sheegay dad badan oo meesha fadhiyo rag badan meesha fadhiyo isku dayay in muddaha inaan la hadlo ayaa waxay dhacday gadaal dambe inay kaga soo biiraan markay bahashi qaali noqoto marka hadda waxa la dadkaan ku biirin oo wili diyaarka ahayna kale meesha joogto ka sii kici doontaa ku soo biira dekada intaan ka ogahay shakhsiyan waan tagay وان soo booqday 3 sano ka hor aan meesha soo booqday laakiin waxa markii hore aan shakhsiyan ay qanciyay dadka gacanta ku haya ayaa intooda badan aqaanay dad amaanadooda iyo diintooda iyo xoolaha dadka ku nabad gelinaya
inaad hesho maanta qof ku hagarbaxaya oo dadkana lagu yaqaanay Soomaaliya meesha Puntland dadka kaga degan dadka ugu dhaqaaqroon ay yihiin ahlu diin ay yihiin wax qabadna ay leeyihiin bale intay dhismaha socday xoolahooda inay bixiyeen waxyaalo badan waxa jiro safaro badan iyo meelo badan ay tageen inay qarashaadkooda gaarka in muddaha ku wadeen marka waxa leeyahay walaalayaal maanta waa namuudajka Sheekh Cabdullaahi ha sheegay namuudajkan weyn oo ah waaba la yaaba ma taqaana markuu doctorka hadlay lahaa maxaa la dhahaa dekadii Soomaaliya uu ka soo hadlay de tabcan si kasab ha noqoto ama dawladda Soomaaliya hala dhaho ama anu kale waxaan aaminsanahay dekadii dhisma dawladda Soomaaliya dhistay cid kasta lacagta laga soo qaaday cid barakaysa ayaa mas'uuliyad iskale laakiin tan waxay kaga duwan tahay xaqiiqatan waxa weeye dad Soomaali ah oo qabiil walba leh oo fahansan maanta meeshii adiga wax ku darsatid oo horumarka leh inaad ku hodmaysada wax ku darsatay ayaa isugu yimid meesha dad badan oo kala duwan waad ogtihiin qabiil qaran ma noqdo qabiilna ma wadi karo ma taqaan waxyaalaha qaar kood marka Soomaalidu qabiil dhibaato ma lahan dadkana meeshooda fadhiya qabiil aan nahay ceeb ma aha laakiin ogow qabiilada un baa dhiba qof walaalka ina wanaag aad ku fogeyso ama ku dulmiso baa dhibaato leh marka hadii wixii noo dhismaan maanta garaacadna noo dhisanto waa dhul Soomaaliyeed waay intan hadda la soo maray dawlad Soomaaliya soo dhaxmartay ma dhicin inay wax kaska socdeen dawlad Soomaaliya soo martay ilaa waqtiga farmaajo ilaa waqtiga hadda Xasan waa arin dhulkan waa dhul Soomaaliyeed waay hawsha la qabanayo noqoto hawl private loo leeyahay business ha noqoto laakiin hantidu waa hanti dhul Soomaaliyeed leh way dekado wax weyn waay sidaas daraadeed waxaan rabnaa in dadkan ogaadaan dadka hayana hal amaanadiisa lagu ogaado ka sukow in qofka Muslima Soomaaliya uu meesha uu tago oo nabad ku heli karo oo ku hodmi karo marka waxaan rabaa saddex fariin inaan u diro dadka loo tagayo oo meesha garaacad degan fariinta haday gaarto ee maqlaan waa koow horta dad nasiib leh hatiin laakiin waa inay garataan nasiib inay leeyihiin meel cidla ah oo ilaahay un baa ogsid inta maalmood qaadan jirtay marka la ii sheego safarka iyo waagan tagay koowaad oo ku rafaadnay 2016 ugu horeysay markaan tagan waan ku rafaadnay markaas ba hadana shabaab nagu soo galan wixii naga soo raacay looga qasadar bay noqotay annaga awal ba rafaadsanayn ba hadana rafaad kale noogu sii darsoomay dadka nasiiba leeyihiin fursadaha hadashaan waxa horumar ku yeelan kartaan inay dadkeena la soo dagaan inaad ogaataan dhulkan lama kala lahan dhulka dadka qiimaha u yeelaya ayaa la keensadaa marka ogaada dhaxayd aslanba dadka reer garaacada dadka markay u imaadaan horumarka keenaya dhulalka in la siiyo ahayd dhulalka in la dhawr kaale hebel wax ma qabanaysaa dhulkan wax ku qaba mistaal arta in dhisid boqol aan ku siinay kaale isbitaalku u imo noo dhis iskuul baan dhisaya kaale noo imo noo dhis kama qab hay'ad dhiso business marta in dhisatay shirkad weyn dhulkaan ku siinay ilaa hadda saansaantaas ma muuqato dadka wax garadka ah waxaan rabaa inaan ku iraahdo oo dhulka degan dhulkaasna maanta Ilaahay ka dhaliyay walaalayaalow ogaada hantidan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulkan idinka iska meel dhulka Ilaahay iska leh dulmiga dhulalka lagu hayo hal la joojiyo midda koowaad dhulalkan cid horumar sanaysan hal loo ogolaado talabaad walaalayaal fariinta rabaa dadka gudaha jooga u diray waxay tahay maanta waan ognahay dadka meesha ku nool dhismihii dekada la dhisay waxay ka bedeshay noloshooda waxbay ka bedeshay noloshooda dekada inay timaado waxbay ka bedeshay bal magac iyo deegaankii dadkiiba hore u kacay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar haduu awooddaas iyo authority-gaas idin siiyay ogaada wax la weydiin doona si wanaagsan uga baxa karamkiidii ku yaqaanay soo dhaweyntii iyo wixii han laga helo ugu dambeyn dulmiga la joojiyo qof walba xoolahaaga ku eko xoolo qof leeyahay adduunkana waxba kuma noqonaysid oo in badan waxa la dad xoolahooda intay qaateen adduunkiiba ku hanan waayay oo ku mataq ku ceeshi waayay waxaad arkay nin baa xanuus wuxuu ku leeyahay xanuunsanahay war xageys waxaan u socdaa Hindiya war hal boos laga yaabo qof aad ku qabsatay ba maanta Hindiya inta u socotid iyo caafimaadka hooya wada aaba wada awaa wada kulli waxa wada waa hal boos nin gees kaga qabsatay way waana Soomaali waxa u badan boosaska la iska haystaa war dhulka ka fuqa maalinka qiyaamaha dhulka inta qunta lagu suri marka fariintaasna waxaan rabaa dadka degan inaan u diro gabagabadii waxaan rabaa inaan dhaho mar kale engineer soo dhawow aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan noo timaaday aad iyo aad ma taqaana maxay community-gana ma taqaana leena waa idinkan maasan soo qaybgalkiina طبعا wixii ku saabsan mayf sheekh Abdullah Hashi oo sheekheena oo meesha mas'uulkeena ah ayaa ka hadlay laakiin wixii eventiyad u baahantiin waa noo iman kartaan community-gu u furan yahay qofka soo raba inuu wax ku qabsado waa u furan yahay
annaga kaliya waxaan iska ilaalinaa wax siyaasad ku leh inay nala soo gasho siyaasad ma rabno laakiin wixii ka baxsan horumar oo saan oo kale waan soo dhaweynaynaa laakiin siyaasaddu diinta kama maaranto lidaalika waxaan leenahay siyaasadda waddankaana joognana qayb ha laga noqdo yaa la qabyaaladaynin qof kastoo wax qaban karo Soomaali booska waa badina hala galo hana laga dambeeyo dadka hal lagu taageero meesha galaan sidaas daraaddeed waxa ka diin iyo siyaasadda inay kala maarmo anaa soo dhaweynaya gudoomiyihii magaalada muxuu xaafadda Sitak Maxamed Ali Cigaal waa gudoomiye Soomaaliya la hadlaynaa ma yaran dhahna gudoomiyaha magaca xaafadda Sitak oo xaafadda ku yaala mataqaan laboorka ku yaala ah oo ninka ugu horeeyay oo kalarka madow ah hadduu Carabi hayna waa meesheedii laakiin anagu waxaan iska aaminsan Carabina anaa wali maadaama tiib Carab aan nahay ninka ugu horeeyay madowba oo meesha mas'uul ka noqdo haddana Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay Maxamed hogaankaaga aadaan ugu faraxsanahay wax qabadkaagana insha Allah taala in badan oo kamid waa sugaynaa dhulkii inta meeshaan joognaba sidaas daraaddeed waxaan ku leeyahay ku soo dhaw mikrofoonka fali tafadal mashkuuran maajuuran هلو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدري مروين ولا مغلى يا بنفليا أنيجا وحن ربا إن هرت السلام إسلامك وأحمد أبو شرف يقيم بدن سلام عليكم السلام وحن سجارة عن السلام يا وعن حسيا ميف يتيم كشيخ يحيى idinka unba isku kaaya keeni kara meel aanu 2 saac ka hor aanu qabsan karno aanu ku shiri karno meeshaan baa jira marka waan mahadsantiin programmada iyo hawsha aad ummadda u qabataana kolleyba dee adduunka haddiina nooga helin meel kale ka wanaagsan adduunyada nooga helaysaan marka insha Allah dulqaad badan baa loo baahan aniga waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Cali Nuur فأفرح سودو مقالن سياتك سودو أنا قال الشيء أنت بدنا أنت ماشان شوكته وأنا قانا أنت عن إلاوي مقعيودي معنا وضع إنه هذا عجيب سموه مركا محمد على عقال باليدها مير كمقال سيتاك بانا هاي ننهر تقريبا يقرع لأنه هذا يكيمد بانا هاي برد ود بانتان لي وريستي بان وحنكوري تقريبا بان كيمد مركاسي نيس وين بنقط ما فهمت مركا أديات ما كسر ويننا كسر هو مقالدان أنا دتك مسؤولين تاع الصومالي ذا نومي مادان أنا رئيسي أتردان هاي بركة بردو ذا بس نشوفان نلا كفتهم يا رب استروح نقولوا ما له بتقول هذه تبع دوابة خير بعد الشهر وعيرنيو لواري مد برئيسي أتلو سكودر ستين فوقاني بخيل نمو marka waxaan ku yiriniyo fogaanta waxa ka qaban karo de dhulkii ma la laabi karo laakiin waxa sameyn kara baqeylnimadii wax ka qabanayna marka aad baan ugu faraxnaa qof mas'uul oo Soomaaliya haduu loo yimaado anigu waxaan rabaa hal arrin baan soo qabsaday reer mudug hal arrin ka hadlay waa wax iska magaciisiya laakiin caaw hal arrin baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa waxa la yiraahdo horumar dawladnimo iyo burcadbeednimo isma galaan runtii la isku sheegaa wanaagsan annaga halkaan joognaa oo dadkaas ka dhashay oo halkaan nimid arinta hadana ka hadlin de waxa ma noqonayso waxa qarsateen way ku qarsadaa baa leeyahay horumar iyo dawladnimo waxa ku jira nolol inaa heshid waxaad u baahan tahay inaad samaysatid system iyo dawladnimo samaysatid systemkii iyo dawladnimadii iyo burcadbadeednimaduna way ka arintaas laba meel isku meel ma geli karaan oo iska soo horjeedaan دكتان وحاجة شيء 400 مليون $. يعني عبد الحكيم بعد يتكلم وهو عجيب نيويورك تايمز بنك آخرية معنيه ضد دجن وواحد أنت على إكس سميستي فرانسيسكو ما سمين كران شرمالكو ما سمين كران إنجليزكو ما سمين كران لكن ضد كمية شخص ما سميستي وحن أباهنا مركب waxaan u baahanahay bacda waxa aan sameynay horta waxa aad sameysatado ku qaaliga waa la ilaashadaa magaceeda la ilaashadaa sharafteeda la ilaashadaa ma fahant waxaan rabnaa marka arintaas walaal soo sheegay dadku meesha joogo nin bari loo rajiray Milton Friedman babu qoray wuxuu ahaa dadkan la yiraahdo economic theorist oo public policy iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo wax noocaas ah dadkan wadankan xukuumay ninkii wax soo baray buu ahaa ilaa iyo 1960 wixii ka dambeeyay
wuxuu yiri ummaduhu waxay leeyihiin saddex wax baa Ilaahay siiyay bini aadamka saddex wax ama Chinese ama Turkish ama Faransiis saddex wax midda ugu horeysa wuxuu yiri waa natural resource-ga waa badda waa beerta waa magaciisi mineralka weeye waa inta macdanta waa natural resource-ga okay maxaa kale ku xiga dadka Africa waan ka midnahay meesha Europe iyo Asia iyo Japan ay gaboobayaan 60% dadka Africa ku nool waxay ka yiriin 25 sano dadku waa magaciisi waa hanti maxaa kale dawlad wanaaga baa magaciisi hantida saddexaad Soomaaliya iyo dadkayaga labo Ilaahay waana siiyay badiina waana la siiyo hantida natural resource-gii dadkiina waana siiyay laakiin dawlad xumaan haysata dawlad la'aan baan haysata annaga inay naga timaada waayo waxaan dooranaa midaan ama awood lahayn ama waxba qaban karin ama rabin inuu wax qabto ma fahant marka labadaas ma shaqeynayaan haddaan kan kala jirin waxaan marka ku bogaadinayaa dadka oo aan la hadlayaa inta halkaan joogta ma inta waddanka joogta war dadka dhalinyarada oo badda fuulaya Sri Lanka laga qabanayo war shaqo u abuura warshadaha la keeno warshado wax kasta oo aad meesha ku sameeysid maalina Bombay baa geen ka dhamaalinta Jakarta geen ka dhamaalina magaceedii baa geen ka dhaa intay garaacad iyo jiriiman iyo gaalkacyo iyo bandiirada iyo laga soo saaro lagu soo sameeyo ma fahant haddaad aqoonteed iyo kartideed iyo naad lahayn wardan leh waa yimid waxay joogeen ma fahant wax halka ku ciyaarayo dhalinyarada oo dhulkaas iyo Soomaaliya ka yimid aqoonteeda leeyihiin marka meesha iskaga beer iska retire grow sida anagu retire growno qodhow insha Allah marka halkaas xogaa baashin ba ka noqday waayo dawladnimada iyo dawlad wanaagu iyo sidii horumarku wada shaqeeyaan baan xogaa soo arkay aad iyo aad baan salaamaya waxaan rabaa inaan soo dhameeyo Ali Nuur injineerka biographies waxa ka hadlay Maxamed soo dhawow aad iyo aad baan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مناسبة وحلو مجع بحي سودوين تاس آد يعني مهد علنا يا جالية سياتل ميل بدنا نسافر لكن إن كستو عن نورث أمريكا غير كمية جوجي وسيد هذا الشيء سياتل ويوفو قاتي weligay fursad uma helin maanta ayaa igu horeyso inaan soo salaamo marka fursad wanaagsan bay ii noqotay aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta noocaan oo kale meelo badan lagama helo dad ku jecel ayaa waqtigooda ku soo hura oo sidaan oo kale kugu yimaada marka waxaan idin leeyahay ajar iyo xasanaad Ilaahay ha idinka siiyo waana ku mahadsantihiin booqashadan ma iloobayo waxa dhici karto haddana wadadii waa bartay oo inaan soo noqnoqdo waa dhici karta marka walaalayaal anigu qurba joogtaan markii hore kamid ahaa noloshayda waxaan ku bilaabay qurba joog umrigayga nuskiis waxaan joogay qurbaha hadda la idiin sheegay oo qayb kamid ah Sacuudiga ahayd oo kadibna aan Canada u soo guurnay waqtigii dagaalkii khaliijka 1995 muddo markaan Canada deganaana waxaan u noqday imaaraadka saddexda wadanba waa ka soo shaqeeyay dhismaha iyo mashaariicda ayaan inta ka shaqeynayay ilaa 40 sano markaan dambe oo aan wadanka ku noqday waxaan ku noqday Soomaaliya anigoo 35 sano qurbaha joogay oo inta aan Soomaaliya tegay ay yar tahay markii horena meesha aan ku dhashay oo ku koray koonfur ahayd Muqdisho marka Muqdisho oo dawladda ay ka jirto waliba mudnaan iyo magac weyn ku leh Afrika ayaa ka soo tegay anoo dhalinyaro oo markaa 20 sano jiray 35 sano ka bacdina waxaan ku noqday gobolladeeni oo aan aqoonin laakiin maanta oo aan ka hadlayno dekada Garacad waxaan rabaa inaan xuso wadaagsan كمبني اللي يراهدو LLC oo hadda shaqada Garacad dekada Garacad wado
dekada waa isaga shirkadaasaa bilowday oo ku guuleysatay runtii inay hawsha hadda socoto oo meeshaa soo gaartay ay qabato laakiin bilowyo ka horeeyaa jiray laakiin aanan miro dhalin waxaan jeclahay inaan xuso markii ugu horeysay oo aan tago Puntland waxay ahayd 2008 missionkaas aan u tagnayna waxaa mas'uul ka ahaa oo aniga nin kale oo ehelka ah oo deegaanka ah noo diray madaxweynihii dowladda federaalka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah ha u naxariisto aad iyo aad ayuu u rabay legacy-giisa inay ka mid noqoto oo mudug ka dhiso mashruuca la yiraahdo loo bixiyay markaas Central Somalia Economic Zone oo ka koobnaa corridorka dekada Garacad iyo wadada 300 oo kiiloomitir ah oo ilaa Garacad iyo Galdogob ah oo hadda wali qorshaha ku jirto iyo airportka Gaalkacyo missionkaas ayaa ugu horeeyay oo aan Soomaaliya markaa u tagnay oo safar badan aan u galay oo China iyo Sacuudiga ay kamid ahaayeen oo sponsoray madaxweynuhu uu ka dambeeyay safarada markaas oo aan meel tagno marka waxaan u sameeynay codsigiisu wuxuu ahaa anigu waxaan rabaa inay legacy arrinta ay noqoto oo aan hawsha aan ka tago mudug oo dekad iyo garoon iyo leh muxuu ahaa iyo wado wax aan dadka dawladaha aan u tago u geyn lahaana waxba ma hayo marka dadkii u sameeyay baan ahayn economic zone ka Central Somalia Economic Zone warbixin ah oo representative ah oo dawladaha loo geyn karo China ayaan u tagnay China wafdi ay soo direen iyo shirkado ayaa yimiday Garacad adigu ala kulli hawlahaas waxa kama qabsoomin laakiin dadaalku ma yareyn madaxweynuhu Allah ha u naxariisto marka inta ayna xusuurto waa jeclaa waxa ku xigtay markii muxuu ahaa wadaagsan hawlaheeda ay bilaabanayeen muxuu ahaa nin baa subax anoo markaa jooga Boosaaso ii yeeray habeenkii uu maskaxdiisa ruurugayo waxa uu soo baxay qorshe ah si fudud oo dekad loo dhisi karo marka anigu maadaama engineerna aan ahaa deegaankeena ka soo jeedo ayuu ii yeero subaxdii salaada markuu dukaday subaxdii qoraxda iyadoo aan soo bixin wali ay aroor hore tahay ayuu ii yeero engineer ma waxaan rabaa inaan kula kulmo ninkaas waa nin hadda boorka isaga laftiisa kamid ah oo hawsha dadka howlwadeenada hadda dekada wada ah marka aan u tagay oo aan la kulmay wuxuu yiri xalay waxaan ku riyooday hawshaas inaan dekad dhisi karno maxay kula tahay ra'yigaaga adiga engineer ahay waxaan dhisi jiray marka anigu waxaan leeyahay yes we can Obama wuxuu dhigi jiray hal qabsi uu ahaan jiray yes we can waan ogaa in la sameyn karo hawl kasta oo rag hesha markaan rag leeyahay dumarkan waa ku jiraan rag kaliya maaha in ay qabsoomi karto يعني philosopher Chinese ha wuxuu mar hore yiri a journey of 1,000 miles begins with a single step marka Soomaalida ba hadda arintaas iyaga laftooda ku dhiiran oo marka ay noqoto dhiiranaan iyo geesinimo iyo qaraska tuurid Soomaaliya cid uga horeyso ma jirtaba waxaan inta aan joogo Soomaaliya gabayada aan maqlay waxa kamid ahaa ragta shaday waa tuli karaa taa kol labadeeda marka waxay u baahan tahay kaliya niyad khaalis ah iyo waxaan laga wada shaqeynayo in isku dan laga yahay oo maaragtay la rabo inay hirgalaan ninkii anigu waa dhiirigeliyo waxaan yes we can do laakiin inaan u tilmaamo kale oo aan hebelna u tag bal ra'yigiisa soo arag nin aan aqaano oo ganacsatada Puntland kamid ah oo nin maaragtay entrepreneur fiican ah ninkii u tagay isaguna intii oo kale uu sheegay wuxuu yiri yes we can waxaan wada qaban karaa halkaas marka anagu saddexda qofood u horeeyay baan ahay rag kale ka raadinay qof kasta oo aan u tagnay arintii uu soo dhaweeyay waxaan gaarnay marka numberkii ilaa 20 meeyo stepkii koowaad
first step oo ahayd 1000 mileski the first step waa qaadnay that first step horta waxa ugu muhiimsan ah you don't have to have all the answers marka aad rabtid project weyn iyo mission inta la eg aad fulisid hadaa su'aalo badan ay ku hor istaagaan oo aad jawaab u raadisid ma shaqeyn kartid marka waxa muhiim ah inaad isku daalin inaad su'aal kasta jawaab u heshide go on and move garaysid laakiin si xisaab ah oo calculated ah oo maaragtay qorshe fiican leh aad ku socotid marka missionka ugu horeeyo talaabada ugu horeysa waa ugu muhiimsan tahay talaabada aan qaadnayna waxay ahayd in aan sameyno feasibility study oo nooga jawaabaysa horta meesha dekad ma noqon kartaa waan ognahay Garacad ilaa 60kii yaa lagu riyoonayay dawladii maaheed civilianka ahayd lafteeda talaabooyin ay qaaday jiray oo dhicisoobay oo aan waxba ka qabsoomin laakiin qof daraasad sameysay ma jirto daraasadna waa shaqada engineeringka iyo construction waxa ugu horeeya waa in horta aad heshid blueprint waxa kan masuula galayaan shirkad Chinese ah ayaan maaragtay aan doonay marka aan waxa sameynayno lacagti xataa wali ma haysano kontraadi nimanka Chinese aan Djibouti ugu tagnay oo ka dhisay Djibouti ras asal meel yiraahdo warshad dekad weyn oo cusbada laga dhoofiyo oo mashruuc weyn ahaa nimankii waa aqbaleen inay noo yimaadaan oo daraasadii nala sameeyaan kontraadaas waxay ahayd ilaa 320,000 kontraadaan galnay anagoo wali lacagta xataa ay noo dhameystirnayn talaabooyinkii dhiiri maaragta ahay geesinimada ahay oo aan qaadnay ayay ku jirtay markii daraasada ah helay runtii waxaan helay encouragement weyn yani waa feasible mashruucan dekad Garacad meesha la yiraahdo waxay leedahay mool weyn oo aan u baahnayn in la qodo dekadaha adduunka badankooda waxaa ku jiro in dhulka la qodo dredging wax la yiraahdo si loo moolka loo weyneeyo marka waxay yiraahdeen Garacad moolkeeda waa fiican yahay uma baahna in la qodo waa number 1 number 2 building materialski meeshay ku yaalaan oo dhagaxi iyo ciidii قليا كان استعمال كان استعمال marka meesha raacay meesha fursadda okay marka dhagaxi oo waxa uu dhisi lahaa ciidii oo construction materialka ah oo runtii ugu muhiimsan waxyaalaha ugu muhiimsan ah meeshii ku yaalaan marka hadda meesha dhagaxa looga qaaday dekada 2 kilomitir ma aha dadkii tagay waxaa laga in badan kamid ah waxaan tagay waxaan leeyahay inaan tagteen marka arrintaas geesinimo wanaagsan noqotay memberski dadkii isleeyay waa soo bateen muxuu ahaa waxaan bilaabnay marka fundraisingkaasi runtii dumarka qayb weynay ka ahaayeen waa aniga idiin sheegay rag tashaday meel kasta oo rag ku tashaday dumarku kama maqnayn in fact waxaa jira taariikhda islaamiga ah waxyaabaha la xuso waxaa ka mid ah Salman ninka la yiraahdo Salman al-Farisi oo geesiyaashii waaweynaa ka mid ahaa markii uu qabsaday Bayt al-Maqdis oo dagaal uu qabsaday gaaladii waa isweydiiyeen waxay dhaheen waxaan maleynayay muslimiinta inaad difiid gareynay sidee ninkaan xagee ka soo baxay waxaa la ogaaday markii la baaray in ninkaas ay hooyo soo korisay exceptional ah marka nin kastoo raga markay aragtay runtii guri iyo hooyo fiican buu ka yimid laakiin Soomaalida mahmaahooda kuma badna dumarka runtii marka gabadhii ugu horeysay oo aan fundraising ugu tagno rag hadda boorka ka mid ah oo laba ah ku tegay sheerku markaas wuxuu ahaa 25 waa bilow 2016 markaan ka hadlayno waxaan xasuustaa gabadhaas aan iloobi waayay waxay tiri sheerka laga rabo ku haysaa waxaa laga sheegay 25 in hal sheer bixisay laba bixisay wixii markii waa bixisay waxay tiri aniga waxaa faa'iido ugu filan dekada hadda dhisanto
faa'iido marka marxaladii la soo maray ku ahayd challenges aan ma jirin Soomaaliya in mashruuc laga fuliyo mashaariic badan oo aan kasoo shaqeeyay jiray laakiin meel ka badan in mashruuc laga fuliyo Soomaaliya ma jirto problemada waxaa ka mid ah khilaafaadkaas waxaa ka mid ah qabiiladaas waxaa ka mid ah dadkii oo kala dan ah oo aan danta guud la wada ilaalinayn ayaa ka mid ah marka marxaladahaas dhibka badan horta waa kasoo gudubnay insha Allah markii shaqada aan hawsha guddiga la galay lacag ilaa bilbil awliya la bilaabay waa fududaatay hawsha si fiican u fududaatay marka haddaba wadaagsan marka aan dhahno iyo dekada sida ay ku bilaabatay dekada guud ahaan waxaan u malaynaa kulligiin inaad la socotiin marka waxaan jeclaan lahaa inaan presentation oo aan kaga soo diyaariyay dekada aan idinla wadaago Causewayga waa ka Causeway weeye marka parkingkii laga soo gelayay dekada iyo qaabka ay u eg tahay waa sidaas markii banaanka laga joogo ama kor laga fiiriyo mid kale jirisana labay way kuwaas Causeway waa labadaas markii banaanka marka ay dhammaato weye sawirkaas arkaysaan wadada iyo laami ah iyo meeshii la marayay iyo dejinteedii markabada ay ku dhameeyeen in briefka yar oo hadda aynu who's the point of contact? Yeah, lots of area, share build, own, operate, and transfer. Lease periodka waxaa weeye 6 sano. 6 sano marka ay dhamaato waa la renew garayn karaa. Wixii markaa dowladda iyo ownerska ay ku heshiiyaan ayay noqonaysaa. modelkaas oo design hore ah 2016 Chinese waxay sameeyeen 4 kilometer by 4 kilometer ayaa daraasadii lagu sameeyay iyo model iyo wixii la qaranayo oo dhan natiijadii ka soo baxday waxay ahayd very encouraging confirmation waxa la helay feasible yahay mashruuca inta iyo dhagaxa inay meesha yihiin oo aan meel fog aadayn draftiga ma aha moor uu yahay quality material meesha waa la testgaray in quality loo baahan yahay waxa lagu dhisayay marka loo compare gareeyo dekadaha magaalooyinka nuur sida Hobyo iyo xataa meelaha kale oo hadda waxa laga dhiso inay dekadaan aad uga raqiisanayso oo ka jaban tahay intaasba waxaa ku fahmay daraasadii Chinese okay marka design kan generally aad weeye kan ku xidhan waa isku mid labadooda yes marka sida halkaas ka aragtaan markii parkingka laga yimaado beerfunka ugu horreeya la tegayo waa oo ah 153 mitar birkiisa airwaykaas maraakiibtii loogu talagalay inay ku soo xirato roorooda oo ah beerfin B waa 120 mitar marka roorooda waa roll on roll off wuu soo gelayaa dabadu furanaya wixii saarnaa uu leejinaya waa baxaya halkaasaa loogu talagalay original designkii markii aan miskiinka ahayn oo aan muxuu ahaa tabar badan ay la jirin qorshaha oo dhan wuxuu ahaa in nabadaas A iyo B la dhiso kaliya laakiin markii mashruucu bilowday oo materialkii uu fuliyahay la arkay dadkii hankii waa sii yimaaday marka sidaa arkaysaan labadii beertin oo asalkii shaqada lagu bilaabay markii labadoodaba la isku daro waa 273 wax dhimo weeye laakiin markii dambe la rifaaskareeyey oo la siiyay maaragtay hankii uu weynaaday
وأركيسان وحا قدري برسي أو سدح بقول يسود يسدين متر إيو دي أو سدح بقول متر مركز توتال كما أركيسان وسعر بقول بير أن هذا المسيد أنا جاري وسدح لاب تلاوة هو أن بلاوي هو تركلي ويسدح لابطي taasina waxaa weeye damaca dadka bini'aadamku iska damac badan yahay waxaan kalsooniya dadkii soo gashay in wixii la samayn karo baa la gaaray marka physical parameterska hadda kale oo design-ka waxaa ka mid ahaa main breakwater oo hadda dhirirkiisu yahay 1500 laakiin originalkii ahaa 800 iyo small breakwater-ka oo AAB-da ay ka samaysan yihiin oo 170 mitir ah beertiskii waa 4 beerti oo la sheego oo roob oo ku jiro draftiga waa moolkana waxaa weeye 12 mitir halkan waa capacity dekada ilaa 30,000 oo dead weight-ka waxaa weeye markabka isaga naftiisa iyo waxa saaran marka la isku daro culayska oo wado culayskiisa deadweight la yiraahdaa waxaa lagu talagalay 30,000 ilaa markab maraakiib 30,000 qaadi karta inay soo galaan mooring accessorieskaas waa markabka jambiga uu ku xiranayo fire protection loo sameeyo navigation aids loo sameeyo harbor chart loo sameeyo waxaasoo dhan ay yihiin ISO IMO certified compliant inay yihiin oo standardska adduunka ay la socdaan markaas sidaas ay complete ku tahay ama ku noqonaysaa mobilizationki oo ah contracti dhismaha baa la galay contracta shirkadda la yiraahdo Turkiga ah oo anigu aan ku jiro maamulkeeda ayaa contracti la siiyey taas lafteeda sabab ay lahayd anigu inta shirkadaasi laga helay intii ka horeysay lafteeda rag meesha laga joogo sheekh Axmed oo kamid yahay baa ogaa waxaan ka mid ahaa muxuu ahaa boorka laakiin caqabadaha waxaa ka mid ahaa Soomaaliya shirkad inta timaado inay ka shaqaysa rabto ma jirto haddii ay Chinese-ka ugu waliba damac badnaay haddii oo shaqada jecel waxay ugu xireen shardi ah in aan ugu yaraan kontraaktii hore asalka ahayd oo ilaa 40 milyan ay ku qiimeeyeen ayay yiraahdeen ilaa ugu yaraan 10 milyan waa inay ku jirto accountigiina waxay kaloo yiraahdeen waxa aan soo rabno oo dhan waxaan keenaynaa mas-uuliyadooda waxaan qaadanaa ilaa Salaala wixii Salaala ka dambeeyo idinka mas-uulka ah haddii ay badda xataa ay maaragtay qaado oo dowladuhu maraakiibtu ay la baxaan idinka mas-uuliyadeeda oo lacagta bixinayo marka waxyaaba meelo badan markaan garaacnay waxaa noo soo baxday in ay adag tahay shirkad markaa riskiga qaadanayso shirkadaha waddanka joogo maahan shirkad kale inay adag tahay in la helo shirkadihii waddanka joogay yaa u yeeray oo ay shirkadaan kale oo aeroportka garowe dhistay yaa joogtay daraasadii markii loo dhiibay way aqbaleen inay kontraata qaataan marka saas ayaa kontraata markaa lagula galay mobilizationkii 2018 loo bilaabay constructionkii November 2019 bilowday tacdiyaadkii ama jaaniskii ugu weynayna sidaasaa looga gudbay current status hadda darkada marxaladda ay marayso waxaa weeye main breakwater-kii oo ahaa 1500 oo mitir 98% complete weeye waa dhamaaday almost 2% ka dhiman ogaada waa imaan extension marka hore 800 waxaa design hore kadib aa lagu daray dhowr boqol oo kale kadib aa lagu sii daray yani laba extension oo kale la sii sameeyey sidaas ay 1500 ku noqotay small breakwater-ka hore mar hore la dhameeyey beerif dhismaheedii waa dhamaaday waa operational weeye rock construction operational weeye iyo boom oo isla socdo si rock filmkii waa dhamaaday shaqada dekada marka la qabanayo inta hadda meeshaas ku qoran liiskaas la qabtaa rock filmkii
وأنا دميت وهذا يديمه من هاي بدا revetment works waxa way protection kanaga xasna ku muhiim way burla protect karo si ay jiha wada iyada waa la diiday anti fibrosis ka waa inuu irregular shape ka rabo aragtaan sawirada ku aragtaan oo iyana another layer of protection isagana waa la diiday corona worka uu ka sokeeyaa asagana waa another layer of protection bada waa badweynta India marka protection after protection after protection loo baahan yahay corona workaas waxa waa dib bushuq oo ilaa 9 mitir ku gaarayo marka wax kasta oo soo gudbo hata oo dhagaxii anti-fibrosis-ka iyo revetment-ka ka horeeyay ka soo gudba ayuu maaragtay celinaya marka waxa waa elastic protection weeye two protection kana waa meeshii laga soo laabanayo maxaa protection ka lagu sameeyo keyword block-iska iyo keyword footprint-iga keyword block-iska waxa weeye block-is gaar ah oo shay gaar ah oo markii wixii protection-ka la sameeyey la dhiso waa jambigii marka uu soo xirnaayay block-yada la duwayay oo smooth oo hadda lagu xirayo marine accessories-ki waxa marka iyaguna waa completed intaas sida waa aragtaan hadda waxaa ka socda dredging work shaqa oo dredging oo waxaa rabaa in daraasad kale oo la sameeyey waxaa soo baxday inay saaran tahay meesha hadda aan joogno gobolka 12 mitir haddii la rabo in la sii weyneeyo ciid waxaa jirta ilaa 2 mitir oo kale oo la qaadi karo 2 mitir haddii la qaado dabcan waxaa sii moolka sii weynaanaya marka waxaa la goostay in la dredgeyo oo ciidda la qaado si moolka ugu weynaado shaqadaas hadda socota hadda dredgingka marka socda waxaa weeye keyword block-iski meesha la dhigi lahaa oo jabigii laakiin marka ay dhamaato waxaa la rabaa in dredgingka lasii ballaariyo oo muxuu ahaa moolku lasii weynayo meesha maraakiibta ay kusoo xirinayaan ay gaaraan waxaa weeye marka beerihii oo midda ugu dambeysa iyadana sidoo kale backfilling waa dhamaaday revetment workiskii waa in progress oo protectionkii labaad anti-fibrosis progresskiisa wuxuu sameeyey 1300 dhamaaday wuxuu dhan waa 1500 dhiman corona work casting in progress isagoo waa socdaa dibdii waa socdaa 200 gaaray waxaa ka dhiman 300 two protection-ka sidoo kale 1300 gaaray anti-fibrosis production-kii 100% uu dhamaaday laakiin saarantii ma dhammaan oo laguma bilaaban kii block-iska oo jabbiga dhismihiisina waa la bilaabay intaas waa socota waxaa weeye sawirada dekada sidaas iyo maraakiibtii kusoo xiratay hadda waxaa arkaysaan ka gudub isagana sidoo kale waa sawiro kaliya negesta haddana waa sawiro kaliya kuwaane waa wixii meesha kusoo xirtoo la sawiray ka gudub waxaasoo dhan waa area views iyo sawirada shaqaalii shaqaynayay halkan marka waxaa weeye meesha ugu muhiimsan waa investment opportunities share structure-ka dad badanaa waxaa u malayna hantileyaal meesha jooga waad ogtihiin laakiin waa kugu celinayaa one share waa 175 minimum waa ilaa 20 share in laga tago oo 3,500 noqonaysa share A-gii hadda wuxuu taagan yahay 130,250 oo u dhiganta 750 share dekada marka share structure-ka horta waa kaas maantay in la gaaro gooliskaas oo 4% oo si fiican u dhammaystiran waxaa weeye lacagtii hadda waa go-an tahay dhaqaale xumo ayaa hadda waxa ugu weyn oo dekada hortaagan ay yihiin marka shirkii emergency meeting-ka ahaa oo bishii November la qabtay waxaa la go-aansaday oo dadka hotelayaasha hadda waaweyn oo soo sheegay in dadku ay ku darsadaan lacag
markaa uu rabay in la raysgareeyo ee 26 milyan iyo 600 oo kun oo iyada loogu talagalay in shaqadaas lagu gaarsiiyo meeshaas hadda ay raba in la gaaro oo RTC iyo diin lagu dhamaysto marka calculationka wuxuu ku salaysnaay 706 sheer 706 sheer iyo biyihii wixii ahaayoo la socday baa jiray laakiin sheeriska la siinayay maaragtay incentive-ka waxaa weeye 706 sheer oo ay leeyihiin shareholders tiradooda ay tahay 526 qof dad waxaa jira 2 sheer dad 3 leh ka dad ka badan lahaa jira marka sharesku waa 706 laakiin dadka leh waa 526 qofood lacagtaas hadda waqtigeeda waa la dheereeyey markana waa la dheereeyey markana waa la dheereeyey laakiin waxaa hadda moodaa markii dheeraynta ugu dambeysay inay tahay markii dadkii hore sheer u lahaa oo sheerkooda ku darsan qiimaha la sheegay oo 36,000 iyo dhowr boqol ah waxay ku faa'iido qaadanayaan faa'iido qaadashada ugu dambeysay oo waagi sheerka markii uu soo gaaray 7,000 uu soo gaarayay la siiyey dadka oo 40% ahayd marka waa ku dhiirigelinayaa qof kasta oo awoodo ama hantiga hadda jooga ha noqdo ama qof cusub ha noqdee inuu ka qayb qaato shaqadan dekadda waxay muhiim gashay waa collective effort waxaa dhisay inta qofood oo arkaysaa oo shares ku darsaday ayaa tiirar u ah oo dhisay dad ha bilaabeen oo dad yar ha bilaabeen laakiin intaas qofood oo lacagta meesha ku bixisay waxaa weeye model project oo aan adduunka ka dhicin kanoo kale oo ah oo unique ah oo dadkuba haddaa u sheegtay intii hadda ugu way ay rumaysanayn annaga waxaan soo marnay marxalado aan annagoo shaqaynayno dadkii xataa deegaanka ahay dadkii laftooda deegaanka ahay oo shaqadii arkayey ilaa goor dambe hadda mas-uul oo weynaaday dad waxaa jiray aan nala joogo aan rumaysnayn oo wax dhanba in la cayaara ugu wanaynayay marka soomaaliya ma aha meel fudud oo ay waxaa wey meel adag oo laga shaqeeya aad adag tahay marka wixii dekadda ku saabsan oo aniga hadda weliba waa quraanka kuu sheegay boorka wadaagsan maahi waxaan hadda ahay dekadda oo shirkadda dhisayso wixii dekadda marka dhismaheeda ku saabsan oo su-aalahana waa soo dhaweynaya waa mahadsantihin mahadsantahay injineer cali nuur afrax warbixinta wanaagsan ee la siisay maasha allah waqtigii salaadan waa dhow yahay haddii ay jiraan dad rabay walboon joogno meel waa ku dhibaataysanahay waa iska dawareegayna waalidii way badatay dhibkii waa batay dadkeenii dhibaatooyin fara badan baa haysta sida kaliya dhibaatada uga baxayna waxay tahay inaan qaybinta intaan iska dayno wax la wada qabto sida namuudajkan oo kale in la isu yimaado wax maslaxadeena adduunyo iyo teen aakhira ku jirto inaan wada sameeyno insha Allah ilaahay hana garansiyo wixii wanaag ku jiro injineerkan waa soo dhaweynaynaa insha arintan aad baan ugu faraxsanahay sallallahu alayhi wasallam wa baraka ala nabiyina جزاكم الله خير شيخ عبد الله أبغى ما سنتهاي هذا نوع حرب أنا وياه one of the elite businessmen أو سياتل يمكن هذا عبد الحكيم الحاشي أو لو يقال عبد الحكيم محار welcome عبد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay odayaasha meeshan odinka inkaan injineerka oo noo yimid aad u soo dhawow baan leenahay mashruuca awoodid waa mashruuc aad damuux u ah damuux waxaan uga dan leeyahay yani very ambitious sababtoo ah afrika inta badan dad haweystaa ma jiro in ay dekad dhisaan wax sahlanna ma waxa qabateen dadku waxay dhahaan inta badan dawlad baa dhistay dekad ma dhisinin dekada xamar shirkad Imbrejili la yiraahdaa dhistay
markaata kuminay Europee berigi la dhihi jiray lacagtooda lagu dhisay shirkad Talyaanina waxay ka ahayd supervisor bay ka ahayd tan Kismaayo dawladda ma dhisin dawladda Soomaaliya mana dhisi karinin waxaa dhisay maxay ahayd mucaawinad dawladda Mareykanku ay bixisay tiibaana lagu dhisay tan boosaaso saacadihii ugu dambeeyay Maxamed Siyaad Barre ogolaaday ayuuta Talyaana lagu dhisay khayr Allah ka siiyo niman odayaal baa ka shaqeeyay uu kamid xildhibaanka muxuu ahaa Turile Professor Turile iyo niman kale oo Maxamed Cabdi Yuusuf ka mid yahay rag baa riixay iyadana waxaa dhistay dawladda Talyaaniga oo waxaa lagu dhisay dhaqaale Talyaani dhaqaale Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku dhistay iyo awood ay ku dhisi ka dhigtoona ma haynin tii berberana waxaa dhisay sida la socotaan muxuu ahaa ruush baa dhisay iyadana dawladda la siiyay inta dawladda Soomaaliya aysan dhisi karin dawladda Kenya aragtayna inaka ka dhaqaale badan dekada Mombasa Ingiriiski baa ka tagay hadda mid weyn oo laamo laga dhisayna waxa lacagta dhanna iskala Chinese baa dhisay dawladda Kenya ma dhisi karin midda Khalifi iyo kuwa ku yaala laamoon kuwa Khalifi midda ku taala maalindina kulligood waxyaalo yar oo Ingiriis ka tagay marka mashruuc dad shacab ah iyo isku tashaday oo dekada iyo awood inta lacag geliyay ولا جمهورية الصومالية نسكن ولا دولة كينيا نسكن مركب مشروع عام وإكسبشنال الشيخ وحير ونموذج وهرنتي سوى النموذج أو إكسبشنال وعن رنتي قف عادي وسنسمين كرينين هذا اللي مو ما نربو العقد بحاس كلا دولة مو تشاينا والعقد هذه قاعدة أو لسه مركب مشروع عن إسكندرية يكون رنانتيسو وحادي وين بأهايان خير الله كسيو أنت كنت ذا شيء أنت وحكي قبطي أنا ومحاول أقول يا رينا أن هذا وضع سولو من كلنا هاي أدبان نوم ما زنتين أدم هذا نوبو تمد مع السلامة ما شاء الله مع سنتين هذا نوع حرنا بلدين عقبنا إلى القف كسينو قبنا والله الله أنا وحنوج وقت أوح كرديرة وأرى أيضا إن قريب كنا نقطع برنامجك وحصلوا هلا السلام عليكم هبري iyo eedooyin iyo walaalayaal xogaa meeshan let's pay attention السلام عليكم walaal soo dhawo hay adeer poem yara already qoray waana turjumaya by the Garachat shore where the waves gently gleam rises a pond, a young dreamer's beam. Economic tides roll with the morning sun. Youth's hand shaping futures one by one. They craft with hope, eyes on the vast sea, building prosperity, a legacy to be. From cargo ships to bustling trades, Garachat's promise, youth's dreams arrayed. Here the winds of progress briskly blow, economic seeds in young hearts sow. In Garachat's pond where ambitions start, youth carve a future hand in hand. Dhulka Garacad halka hiraarku iftiimaan, deked ayaa kacaysa, riyo dhalinyaro oo ilaysa, mawjadaha dhaqaalaha waxay rooraan subaxdii oo cad. gacmaha dhalinyarada oo qaybsanaya mustaqbalka mid waxa rajo ku farsameynaya indho ku haya badda weyn dhalinyarada waxay dhisayaan barwaaqo dhaxal noqonaya markabyo xamuul iyo ganacsi wada ballanqaadka Garacad riyooyinka dhalinyarada oo faafaya halkan dabaysha horumarka si firfircoon ayay u dhacdaa abuurista dhaqaale dhalinyaro qalbiyadooda ku beerma dekada Garacad halka ayaa hamiga ku bilowda dhalinyaradu waxay sawiranayaan mustaqbal gacanta iyo qalbiga oo mid ah أبوانات عادية سجوا ما يسوى لكن أقول كذا إعلان ما سنتهي ما سنتهي مركب واحد يروح عربا إن شاء الله تعالى إن أويرو إن وضي عشان بقى هذا كم ده سيلفت الكيس أبوانا نكل إلى محمد ولي ويوجه هذا الكاتب محمد ولي الشيخ علي شفجر بصدق
waxaan rabaa inaad soo dhawaatid ila soo dhaweeya dhibo guys بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير هذا حدام أوراق مدرسة. كل ورمها دنو ده. يا كنا حط كواكب. كل واحد ملايين هي حق سكوماس كان سجرا. وحنا ماشي ونمت. waxaan aad u bogaadinaynaa injineerka waxaan ku bogaadinaynaa hawsha meesha uu ka yimid ay ka qabteen baan aad ugu bogaadinaynaa waxaan maqli jiray gaalkacyo iyo garacad iyo awal waxay lahaan jireen istoore la yiraahdo asaaga iska celibayaan laakiin hadda waxay noqotay asaaga wax u tabco هذه عاد بسول ويننا وإذا قرب تاجنا هاي مش محمد هذا وحلقة شو صار أفكر هذه عاد ونفسي سيب الدكت أتصل صارتان وبرنامج هذه عاد قالوا أوي فرين تندرينا ها أوكي ما عد والله مغلي والله كل بضاعة شيء كذا مغلي هذا ستة المال اوكي هذا ما سنتين صور هلا هذا فرينتان برامج عيارتني فرينتان انتنا نريد فرينا waxa weeye anagu waa idin garab taagan mar walba daano shaariyada Mareykanka aan nahay taasatan waa idin barbar taagan naf iyo maal mar walba waxa nooga baahataa dadweynaha Soomaalida kala ah waxaan ugu baaqaynaa daliya dibad dadka halka degan hadaan nahay maamaha gobolka mudug laga isticmaalo baa jira xalan dhalay dadka caloosha wax ku qaada manihin dad yowga caloosha wax u qaada Soomaalidana waxba soo dhaxmaray everybody Somali meel kasta ha joogo waxaan ugu baaqaynaa dekadan garaac dekadiisayna wax dib raaca iyo dib fiirin midna aan dhaqan iyo midna aan walahay sida awgeed waxaan bulshada Soomaaliyeed dhammaan ugu baaqaynaa in aad meeshaas inta dheeraad u lahaataan in aan la idin kala hayn in aad ma garanaysaa aad ku xisaabtantaan innagana waxaan idin kula dardaarmaynaa service-ka dadka inoo yimaada naftooda iyo maalkooda sida caadada inoo ahayd hayna ka amaan hele taa markaynu helo waa gobonimo marka time-ka yar meelo badan baan marmari lahaa aad iyo aad baan maaragtay idin salaaminaa idin bogaadinaynaa waa mahadsantihiin aad iyo aad baan maaragtay u mahadsantihiin ما سنت هاي رالها سبا يوسف فير لسان لكن ما كلمة يلا بان كورنيا سبا يوسف فير لسان كلمة يلا بان مركا كورنيا يا هذا مايستر بان إنوسو دون جرن سامر ميديا كداون دونتام لكن كلمة يلا بان كيرا كمانادو intay hananayaan garwadaha doobka garacad waa la joogjoogayna gaarna waana tuug u soo gurgurteen wayna gabi ka tuur tuug u soo gurgurteen wayna gabi ka tuuraayo golxftiya amlay iyo gaari guduntaaba iyo gaabano qori oo garabka noo saaran kamaanadu intay hananayaan dugaagiyo waraabaha nago
cadow ka guulayno dugaagii waraabaa anagoo cadow ka guulayno gabanadu intay hananayaan garwadaha doobka garaacad waa la joogjoogaynaa gaarna waana tuug u soo gurguurtana waa inay gebi ka tuura waxaan maqlahayaa waa loo soo lalabisanaya waa loo soo socdaa indho dheeraad waa mahadsantihi raalli ahaan aad baa umahadsantahay dhibe waqti fiican inaan ku siinay aad gabayga noo dhammaystirto maasha allah waxaan rabaa marka intaanan aan u yeerin speakerka kale wax yar oo biographiga engineerka ah inaan idiin sheego dabcan markaa kadib waxaan rabaa inaan qofkan kusoo dhaweynayo inuu u yeero mas-uulkii magaalada Seataag xildhibaan maxamed laakiin waxaan rabaa horta bal biographiga engineerka inaan wax yar idinka sheego injineer cali nuur afrax wuxuu ka soo shaqeeyey Saudi Arabia wuxuu ka shaqeeyey Canada wuxuu ka soo shaqeeyey Emirates projectyo waaweyn constructionna wadooyin iyo bridge ah ayuu halkaa ka soo dhisay projectiga ugu weyn ee Canada uu ka sameeyay waxa dadka reer Canada ama Toronto taga yaqaana Highway 407 Toronto waa head engineer-kii ka shaqeynayay meeshaas hadda engineer-ku 10 sano la soo dhaafay qurba joog ma ahayn wuxuu ahaa qolqol joog dadka ay u bixiyeen oo ah dadka waddanka jooga runaantii projectyo badan oo waddanku ka shaqeeya oo tan dekada kaliya aan ahayn bridge-yada meesha la yiraahdo Garowe hadda construction-ada ka socda waa head engineer-ka ka shaqeeya oo projectigaas madaxda ka ah marka college CV-giisa inta badan asaa idin sheegi doona marka waxaan rabaa inaad sii ogaataan time-ko yar darteed waxaan rabaa in aniga markaan qofkaan u yeero inuu asaga u yeero Sheekh Maxamed u yeero maxaa la meeyarka dan meeyarkan uu soo dhaweeyo insha Allah engineerka haddana waxaan sheekhay inaan ku soo dhaweeyo inuu laba kalmadood insha Allah welcome sheekhay